magacaygu waa Dr. Abdiraxmaan Cumar Xasan, Dr. Berry. Meeshaan joogno waxa waaye isbitaalka Xanaano magaalada Dhuusamareeb gobolka Galgaduud. Waxaan halkaan isugu nimid maantay inaan ka warbixino kayskii noo yimid 17 bishii 7 2018 maalin habeen ah galab asigoo dhabtiina xaaladii markaas ku sugnayd aan rabno inaan dadka la wadaagno bulshada Soomaaliyeed iyo bulshada gobolka Galgaduud gaar ahaan degmada Dhuusamareeb iyo inaan siino warbixin kooban ku saabsan sida xaaladii ay ahayd gabadhii markaas noo timid iyo wixii aan u qabanay iyo anagu aad ugu xun inay gabadhii dhimatay waliba sababo jira badan awgeed. magaca bukaanka noo yimid waxa la yiraahdaa Deeqo Nuur Daahir, waana gabar 10 jir ahayd, dhabtiina nooga timid tuulo la yiraahdo La Sole ee hoos timaado gobolka magaalada Olol magaalada Dhuusamareeb. gabadhaasi waxay jirtay 10 sano 10 years ay jirtay, waxaan gabar ma sha Allah. gabadhii waxa lagu sameeyay waxa loo yaqaan circumcision, gudniin. waliba gudniinka loo geystay wuxuu ahaa gudniin aan noloshana arkin nooca uu yahay ee Soomaalidu u taqaan gudniinka fircooniga ah FGM ama female genital mutilation. laakiin gudniinada arki jirnay iyo gudniinkaas gabadha loo sameeyay waxa u dhaxaysay farqi aad u weyn oo dhabtiina aan ahayn wax xataa aan ku qiyaasi karin, maanta hadal aan ku qiyaasi karin iyo waxa marka ku hor yeelan iyo marka la isma lahan. dhabtii gabadha waxa loo sameeyay type loo yaqaan type 4 oo ah unclassified, nooca uu yahay xataa ma la cadeyn karo. soo gabadha totally labi majooraha gabadha waa la jaray, clitoriski waa la jaray gabadhii. soo waxa soo haray kaliya hilibkii. gabadha waxa laga jaray labada bishimood totally, xibinta taranka loo yaqaan clitoriska ama shofarkaasina waa la jaray dhamaantiis. soo gabadhii waxa soo haray kaliya hilibkii kaliya soo haray oo dhameystiran. xitaa labada labi majooraha midka midigeed bishimood midka jiro midigta ah totally asna waxa lagu sameeyay waa la jaray guud ahaan. kan kale ee soo harayna lama jarin, waxa lagu sameeyay jeextin ayadoo loo isticmaalay wax diibti oo hoos ma bi sakiin ma bi mindi noocayta. waana si dar aad u weyn maanta in bulshadeena Soomaaliyeed ay wali ku taagan tahay dhaqamadii hore ee qarnigii 19aad. Soomaaliya wali ay tahay the first country ugu horeeyay ee prevalence-ga ee maanta caalamka ugu horeeyay 8% marin maanta anaga marin. dhibaatooyinkaas uu leeyahay ee gudniinka fircooniga ah waxa loo qaybiyaa laba qaybood. mid iimaanaya waqti hore iimaanaya, mid ka iimaanaya gadaal. gabadha markii la gudo waxa ugu horeeya ku dhici karo waxa waaye xanuun ziyaada, waxa la gudaa ayadoo aan la suuxin gabadha. waxa ku dhacay gabadha shock, gabadha waxa ku dhacay dhiig baxa ku dhacay zaa'ida. dhabtiina gabadhii waxay noqon kartaa meesha inay qaato infection, ay qaado caabuq qaado. gabadha waxa ku iimaan karo inay kaadida ku cishanto guud ahaanba gabadha ee kaadin weydo. waxa iimaanaya in ku yimaado gabadha woundiga dhaawaca gaaray inuu healing sameeyo oo reesan way iimaanaya. soo gabadha fikir iyo walwal waxa ku abuurmaya mustaqbalkeeda dambe inay ka fikirto maxaan sameyn doonaa sanad xaaladeeda ay tahay. haddii gabadha ay guursatana waxa ugu horeeya ay ku dhibtoonayso waxay tahay sexual intercourse-ga jamaaca ninka uu tagayso ku dhibtoonaysa. waxa kale oo ku dhibtoonaysa periodka gabadha caadada ku dhacay dhibaato ku tahay. waxa gabadha kale dhibaato weyn ay ka iman doontaa haddii gabadha uur ay yeelato fooshay foolanayso waa dhibaato aad u weyn. gabadhaas oo kale waxay laga yaabaa inay ku dhacaan mustaqbalka inay samaysto fistula, ay samaysto isku furan, gabadha isku furanto ama kaadida xaggeeda ama dabada xaggeeda iska furanto. waxa kale oo iman karo inuu cyst ka samaysmo the area oo laga jaray clitoris inuu kuus ka samaysmo oo lamba. waxa gabadha ku imaanayo sexual pleasure, gabadha inay xataa yeelan weydo waxa la yiraahdo means dareen nololeed inay yeelan weydo gabadha. soo dhibaatooyinka soo badan waxa keenaya waxa waaye gudniinkii loo sameeyay gabadhaas loo sameeyay ay waxa soo dhan ka iman karaan. haddaba Dr. Han iyo Isbitaal Xanaan Hospital waxaan ka wacyigelinaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ha joogaan. hooyo aabe ha gudin gabadhaada. jooji gudniinka loo yaqaan fircooniga. waa ciqaab ku ah gabadhaada, waa ciqaab ku ah mustaqbalkeeda dambe, waa ciqaab ku ah ayada iyo fikirkeeda niyadeeda gabadha ha ka dilin. waxaan ku talinaa bulshada waxay tahay in la joojiyo gudniinka fircooniga. diinta meel uu ku qoran yahay habeeratin ma jirto. bulshada Soomaaliyeedna meel walba ay joogaan waxa leeyahay aan u istaagno. haddii aan noqon lahayn dhaqaatiir, haddii aan noqon lahayn culumo, haddii aan noqon lahayn aqoon-yahan, inaan gacmaha isqabsano si loo joojiyo lahaa gudniinkaasi fircooniga.